مدن رئيس الوزراء سجالي أفرت جورة عيدن كاسلوب الصومالية داوي أصلاً هذا وديارة حبسيga iyo maxkamadda Soomaaliyeed oo casriga iyo xarumaha aqoonta qalinta waxaan rabaa inaan mahad celiyo marka hore General Bashir adiga wasiirka waa ku mahadsantihiin inaad nagu casuumtaan maanta inaad kala soo qayb galo furitaanka xabsiga iyo maxkamadda isku dhex jirta oo casriga ah kana turjumaysa horumarka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mahad u celiyo deeq bixiyaashii waqtiga iyo dhaqaalaha geliyay oo iyagu horeeyaan dalka Denmark dawladda Holland ama Netherlands iyo dalka Ingiriiska sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xafiiska qaramada midoobay gaar ahaan xafiiskiisa UNODC dadaalka iyaguna ay muujiyaan tani waxay ka turjumaysaa marka haddii ay Soomaalida iyo adduunyadu iskaashato in la arkayo horumar muuqda oo ummadda Soomaaliyeed u xitaraya waa idinkaga mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed oo dawladda ku jira heer walba oo qayb ka qaatay suurto geliyay shaqadaanina inay fusho idinkana waa idin mahad celinaya waxaan rajaynayaa in dad badan oo Soomaaliyeed oo noloshu ay si ka noqotay ay halkan wax u tari doonto kuwa maxkamadaha ka shaqeeya iyo asluubtana ay shaqadu dhib yaraa doonto ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxay lahaayeen magac iyo maamuus dad badani waxay aaminsan yihiin inay maxaabiis ilaaliyaan waa inaan aqbalnaa in shaqadoodu ay tahay toosin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay barbaarin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay anshaxin iyo wacyigelin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay inay dib u caawiyaan dad Soomaaliyeed oo si ay nolosha uga khaldantay kuna soo celiyaan bulshada si ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo dib u yegleelidda qarannimada Soomaaliyeed waxaan halkaan idinkaga hambaleynayaa maanta inaad soo dhammaystirteen xabsigii la rabay in lagu xanaaneeyo dad Soomaaliyeed laakiin ay ka muuqato qaabka uu dalkeena dib ugu soo dhismayo waxaan uga hambaleynayaa ciidamada asluubta iyo wasaaradda cadaaladda iyo bahda cadaaladda oo dhan oo halkan joogto oo naftooda dalka u horay inagoo taxsiina u dirayna kuwii ugu dambeeyay oo ku geeriyooday oo ugu dambeeyay xeeraaliye ku xigeenkii in xabsigii iyo maxkamaddii ay isku dhex taallo macnaheedu waxay tahay cadaaladii oo tallaabo hore u qaaday waa idin hambaleynayaa Soomaalina waxaan leeyahay Ilaahay u barakeeyo